لو يراد جنرال يوسف محمد سياد العد لو يراد الشيخ يوسف سياد العد كيكورا وإن شاء الله اللي يراد الشيخ يوسف محمد سياد إن شاء الله جنرال كان جنرال و درجو لكن لكن مقع الشيخة أيا قيمة بدن حق الصومالي وحلو لي جيدة جيدة اللي قال لي bal ugu horreyn waxaad nooga warantaa warbixin kooban naga siisaa guddiga aad gudoomiyaha u tahay xagee wax u marayaan بسم الله الحمد لله كفى إلها ما تسكله هذا الرب وعدين ما أذلنا هذا الناس كدب وحنا ما أذلنا متصل على الله وحنا مريا إن الله وحنا جدي ومقعبة تليه وقدرك الصومالية وسدد حنوضة أنا وها قدومية قدرت سبحان الله وتلقى لي inay soo celiyaan hantida xoogga dalka Soomaaliyeed oo wadanka oo dhan ku filaqsan iyadoo habraaca taliyaha xoogga la raacayo habraacaas oo ah in hadba intii baahidu loo qabo oo markaas yani wax lagu qabanayo ummadda wax lagu qabanayo in la soo celiyo iyadoo dadka laftooda la taageerinayo meeshaas laga qaadayo iyadoo lala kaashanayo dawladda dhexe in aan dadka laftooda la tuurin waa saas qorshaha raaca oo aan ku shaqeyno maxaa markay ilaa hadda idin qabsoomay ilaa hadda waxaan ku jirnaa tirakoob iyo maaragtay waa hantidu way badan tahay qaar waa guryo degaana qaar waa meelo ganacsi qaar waa xeriyo qaar waa dhul xoogga dalka iska lahaa oo soona militaar ahaa hantidu dalka oo dhan ay ku filaqsan tahay waa badan tahay marka hadda waxaan ku jirnaa tirakoobkoodii waa tahay ma laga fikiray waxyaabaha ka imaan kara haddii lagu dhaqaaqo hawl caynkan oo kale taa xilligan oo weli bulshada aad u nugushahay waa laga fikiray oo haddii dadka yani shaqadan haya oo u xil saara taliyaha xooggu waa 5 generaal iyo gaashaanle sare iyo laba gaashaanle oo kulligood dadkii expertiga ahay oo ay ku jiraan injineero topografia ah ay ku jiraan injineero generaal oo dhismaha iyo howlahaas yaqaana ay ku jiraan dad bulshada ilaa maaragtay heer gobernatore soo noqday ay kamid yihiin dad ay u dhiman yihiin madaxweyne iyo ra'iisul wasaare way ka hooseeya soo qabtay oo yaqaana bulshada baahidooda iyo ixtiraamkooda iyo xuquuqda ay bulshadu leedahay dad yaqaana waayo loo xulay waay dadku weli waa hubaysan yahay haddii arrintaasi cara ka dhalato hubleeda kala hor yimaado maxaad samaynaysaan anaa marna qorshe nooguma jirto inaan dagaalano dagaalka marna nooguma jirto mana rajaynaynaba dadku inay dagaalamaan sababtoo ah waxaan samaynaynaa wacyigelin waxaan samaynaynaa la kulan waxaan samaynaynaa dood waxaan samaynaynaa la hadal يعني wax badan baan samaynaynaa meesha marka aan u baahano wax badan baan samaynaynaa marka waxa kaliya oo dagaalku dhici kara waa inay ku soo dhuntaan nimanka fidmoodayaasha shabaabka ah iyagana oo ka foojignaanayna insha Allah laga yaabo meelo iyagu degan yihiin inay xariyaha ku jiraan ciidamada waa laga yaabaa oo dadka ku dhex jiraan waa laga yaabaa inay dadka ka mid yihiin laakiin meel u gooni inay jiraan ma rajayna oo hadda loo yaqaano cayiman ma jirto meel cayiman waatay hore waxaad dadka uga kiciseen shacaba ama maatiya deegaanka warshada caanaha kaleeto ayaad uga kiciseen waxaana degay oo saldhig military ka dhigtay dal shisheeye sida imaaraadka kaleeto ah hadda saldhig ka dhigtay marka inaad muwaadiniin Soomaaliyeed intaad xilli aysan munaasab ku ahayn deegaanka ka kicisaan haddana dad ciidan shisheeye ama dal shisheeye uu ku munaafacadsado maxay macnaas taasoo maaha arrin lagu degdegay horta arrintaas anigu gudoomiyana gudoomo ahayn lugna kuma lahayn militariga ka kiciya waxaa ka kiciyay amarka madaxweynaha looga kiciyay hase ahaatee hadda waa dugsiyad waa xarun tababar waaye iyo xeryo ciidan xoogga dalka Soomaaliyeed iska leh dad expertiya oo nacaawinaya annaga degan waxa lagu tababaro iyo waxa joogaan waa ciidamadeennii xoogga dalka Soomaaliyeed marka meel oo ma ahan shisheeye leeyahay ama shisheeye ku manaaficsado waxa ku manaaficsado ummadda Soomaaliyeed
waxaa lagu tababaraa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ciidamo kunka badanaa ka soo baxay kuwa kale hadda ku xaraysan marka warka sidaas u dhigay ma ahan meeshaas xoogga dalka Soomaaliyeed iska leh haddii la yiraahdo ka waran anagoo shacabaa naga kicisan idinkoo saraakiil degay deegaanku waa labo horta hal ogaabo guryaha aan degan anigu aan gurigaanu ka mid yahay oon annaga iska leh xoogga dalka Soomaaliyeed iska leh waxaa lacagtooda laga gooyey shaqsi ayaana laga gooyey ciidamada waa milkiyad aan leenahay waay milkiyadda aan leenahana markasta uma baahano ayaan leenahay inaan qaadano xaq u leenahay midda kale waxa loogu talagalay ayaa waxay oo loo dhisay inaan anagu degno guryahan iyo guryaha lamidka oo naga maqan وطاي هذا سؤال قارو كلا ويديو dadku waxay leeyihiin dadka qaar waxay leeyihiin jaraal in dhacda in muddo wadanka joogay waa nin wax badan og maxay dawladdu xil sare ugu magacaabi lahayd hadii su'aashaas lagu weydiin maxaad oran leedahay waxaan dheelaa horta xilka Ilaahay baa bixiya qof ma bixiyo hadda nacayb iyo dib aniga maaragtay xaqiiqa dawladdu qabtana ma jirto madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo hadda jooga iyo kuwii horeba aad bay ii qadari jireen kuwana ii qadariyaan laakiin waxaan leeyahay Ilaahay ima qadarin Ilaahayna waxaan ka baryaa oon ka weydiisanaa oon markastana ka baryaa haddana ka baryaa wixii aan khayr ii ahayn oo sharina inuu Ilaahay iga xijaabo Ilaahayna wixii khayr ii saqiro wixii iga maqan Ilaahay baan khayr bays ii ahayn sidaasaan aaminsanahay Ilaahayna uga mahadcelinayaa madaxda dalkuna iman nacba aad ii qadariyaan واسكو في عنتين هذا نسوي في عنا بقى يوم وطاي دينعا كلا تصاله جنرال انت عاد waxa la yiraahdo waa nin dagaal wuxuu soo joogay dagaaladii dawladii lagu la dagaalamay wuxuu soo joogay dagaaladii qabaa'ilka wuxuu soo joogay dagaaladii meedyadii hadda kale wuxuu ku haboonaa la dagaalanka in laga dhigo madaxda hormuudka oo la dagaalanka al-shabaab dad baa ku doodaya oo ku haboonaa tam ya mar lagu soo hadal qaaday وما تصنت هرتا aniga 766 ayaa hadan baargrafkii ku sheegay waxa laga soo wareejiyay ciidanka nabad sugidda hiilweyna leegay annagoo badan oo 700 iyo xogaay ah kadibna dagaalkii 77 aan galanay 77 waxaan ka galay maaragtay meelaha badan way galbeedaan ka tagay dhagax buur iyo jigjige iyo adari iyo baabili iyo meelo badan aan ka galnay dhulkaas oo dhan kadibna waxaan soo ka baxsaday xoogga dalka Soomaaliyeed 80kii meel la dharkeengiyo waxa taliye ahaa marka taliye xoogga ninka hadda ah Jaraal Jimcaale ayaa taliye ahaa kadib meelahaas ma ayaan tagay inay safiineen markaan arkana waan soo noqday kadib waxaan ku noqday shaqadeedii nabad sugideed waxaana ka shaqeyn jiray hay'adaha UN-ka iyo hay'adda qaxootiga iyo ayaan ka shaqeyn jiray anoo shaqadii kalena haya saasa dagaaladii waxaana ahaa dadkii dalka iyagoo jooga dawladda Maxamed Siyaad la dagaashanaa oo xagga la rabay inaan u shaqeeyo maahane xagga kale aan u shaqeynayay dagaalkii maxaa Siyaad lagu riday dadka yani ugu horeeyaan kamid ahaa dagaalkii qabaa'ilka ma gelin anugu dagaalkii xamar oo farbiloodka ma gelin kii kale oo qabiilaadka oo maaragtay kala hawiyaha iyo isdaaroodka iyo ahaa ma gelin taariikhda runta markaan kuu sheego soolo waxaan galay dagaal Kismaayo oo laga soo abaabulo Itoobiya ayaa jira dagaalan galay adiga iyo goob aan leeyahay Allah u naxariisto ahay wixii ka dambeeyay dagaalkii ugaano kooxyada iyo maaragtay culimada kaasaan hormuudka ahaa ugaano kooxyada waa tilay adkaaday kadib Itoobiya timid kadib haddana waxaan hormuudka ahay madax u ahaa ciidankii wasiirka gaashaandhigana aan ka ahaa dib u xoreynta iyo weliba Xasan Daahir oo Xasan Daahir dhan walbaba wixii kuurada oo dhan baan madax ka ahaa dawladda Itoobiya waa tii baxday oo la heshiiyey kadib waxaan ku soo wareegay dawladda dhexe ilaa haddana waxaan ka mid ah dawladda Soomaaliya horta aniga baargaraafkii saas waaye waxaa ku soo hartay waa nin dagaal waxaad ku habboon tahay al-shabaab inaad la dirirto oo lagu dhiibo meelahaas
maxaa isku gaabisay ayanta waxaan leeyahay dad iga habboon baa jira marka kuwa iga habboon baa loo dhiibo haya saasaan dareemaa anigana yani muxuu isku gaabiyey generaalku haddii la yidhaha maxaa leedahay waxaan leeyahay dalka dowlad baa ka jirta dalka dowladda ka jirtaaguna ayadaa xaquuqda maamul iyo waajibaadka shaqo iyo ayadaa iska leh wixii ay dirtaanan qabanaya waxay ay dirtaanan haya hadda isgaabin kale isdheereen midna ma jirto waa tahay dagaaladaas ma ku saxneed tii maxamed siyaad barro kaleeto dowladdii aada la gashay ma ku saxan tahay ilaa hadda ma aaminsan tahay inaad ahayd arrin saxa mise waxaa jira wax shallaaya oo dad badan oo waxaa jira yidhaahdaa dagaalkaas waa lagu qaldamay oo mushkiladda soomaaliya maanta ka taagan iyadaa sabab u ah waa lagu degdegay dhan markaan ka fiiri waxaan aaminsan inaan ku qaldanaa 100% markaan dalku sida uu yahay iyo waxa dhacay iyo wixii la sugayay wixii la sugayay markaan fiiriyo waxaan aaminsanahay inaan ku qaldanaa 100% dhanka kale markaan ka fiiriyo maaragtay dhibaatadii iyo dalku burbur buu isaga jirayo xataa haddii la iska dhaafo maxamed siyaad barre dalku waa burburi lahaa sida wax u socdeen laakiin runtii waxaan isleeyahay anigu qaybta aan ka qaatay dagaaladaas waan ka shallaya waa tahay waxataa nin wax badan xog ogaal u ah mushkiladda soomaaliya haysata dhanka ciidamada iyo ama amniga bal maxaa nagala wadaagi kartaa waayo-aragnimadaada maxaadse ku sifayn lahayd in weli muqdisho ay ka dhacaan qaraxyo iyo amni darro iyadoo ay joogaan in ka badan 60 genaraal oo sidaadoo kale ay garbahu u gaduudan yihiin in maalin walba muqdisho ay dhibaata ka dhacdo sow taasi wejigabax idinkuma aha idinka saraakiishiina garbaha guduudan waa su-aal nala weydii kara adaa u mahadsan tahay dagaalku horta ma ahan garba guduudan iyo garba-aan midna ma aha dagaalku marba sibu u yaalaa dagaalkaanu ma ahan dagaalkii garbaha guduudan dadka iyaga sitaay ay yaqaaniin oo ay maaragtay yani ma ahan oo kafoolka ahaa oo ciidan ahaa oo ciidanka cirka iyo ciidanka dhulka iyo ciidanka baddu ay wada howlgelayeen waa dagaal u dhisan qarsoodi oo ku dhex milan dadka oo hadda anaga ma naloo tababarin qof isqarcinaya oo naftiisa markuu dhinto asagu raba feertiisu inay adiga ku disho annaga ma naloo tababarin wax kala naloo tababaray ciidamo garba socda tababaray waxay ahayn ciidan yani cirka dhulka badda wax dalbanaya madaafiic dalbanaya nuuc walba leh ama jabhada ah oo gorilo ah inaan ka hortagno la dagaalano marka nimankaanu intiiba maahan waa niman isdila oo ayagu rabo markay dhintaan kadib inaday ku dilaan waa wax cajiiba marka waa tahay su-aal gaaroo kaleeto haddaan ku weydiiyo maxaad nagala wadaagi kartaa xaaladda sheekh xasan daahir aweys sheekh xasan daahir aweys waa joogaa waa xabsi guri oo dowladda dhexa xirtay welina waa xabsi guri intaasan kaaga sheegaa waxaad ka mid tahay xigtadii ka keentay shiikha gurcayl kadibna farahooda laga bixiyey maxaa laga damacsan yahay iminka shiikha kolley xantiisa ma moogid adigu adaa ugu dhow runtii gurcaalka baanaan keenin cadaadaan dhib badanna waana lagugu geystay arrintaas waa ka xunnahay hadda iyo hadhow iyo maaragtay markii ay dhacda intaba waa ka xunnahay sababtoo aan oo guryaheennii joognaa naloo diray waana lagu dhibaateeyey runtiina qarannimada soomaaliya ayaan ilaalinay maahane jawaab waa ka bixi karnay waa arrin aan aada uga xunnahay hadda dowladdaanna ma ahayn waa dowladda ka horeysa xasan sheekh dowladda ma isla soo hadal qaadeen waxa laga damacsan in la xukumo in la sii daayo in la masaafuriyo dalkiisa u jooga meel la masaafuriya ma jirto dowladdaanuna waa ka wada hadalnay wax badanoo wanaagsan aan ka sugaynaa ayna ballan qaaday 100% waxaa jira rag kaleeto saraakiil ahaa oo ama al-shabaab ka tirsanaa ama maarata xisbiyadan diimeedka ka tirsanaa oo dalka laga masaafuriyey muxuu kaga duwan yahay horta lama masaafurin ayagaa doortay dadkaas qofka soomaaliga oo dalkan leh idin lama masaafurin weligana lama masaafurin oo hadda kahor ma dhicin haddana ma dhacayso laakiin qofku markuu doorto bayse ku ridaysan in meelo kale oo la geeyo
oo codsado oo dowlado kale ay siiyaan degaan waa la caawiyaa dowladda dhex way caawisaa magangeliyo waa tahay warar baa magaalada la isla dhex marayaa adigu ma isticmaashaa facebooka hadda sawirkaagaa saaran waa kaas Sheekh Yuusuf waxaa ku sawiran Sheekh Yuusuf indhacadde Facebook aanu been abuur waaye anuu Facebook ma isticmaalo waligeyna ma isticmaalin mana lihi runtii qof dambiilaha Facebook aan isticmaala marar badan waxaan isku dayay inaan ka damiyo waan ka damiyey waxaa la saarayaa muuqaalo waxaa la saarayaa sawiradaadii sawirra oo yacni anta qaarkood ay arrimo siyaasadeed kuwa ku saabsan marka sawirkaagaa saaran marka Facebook-aan anigu ma lihi waxaan u sheegay ummadda Soomaaliyeed inaysan sheer garayn inaysan maaragtay u qaadan inaan leeyahay waa been abuur waligii Facebook ma yeelan haddana ma lihi qolada de iskale aaladana waxaan ka codsanayaa inay Facebooka ay damiyaan aysan aqbalin Facebook aniga magacayga ku samaysan oo ku wax shaqo kuma leeyahay maxaa qabataa marka waqtiyada firaaqada ilaa maanta adduunka waa la kala tago madaxdii sare madaxweynayaasha ku jira Twitter iyo Facebook iyo ku dhex jira aanu waqtiga firaaqada waxaan qabtaa waxbaan akhristaa quraankaan akhristaa waxbaan qortaa buugtii hore aan akhristaa oo wadanka ku ciidamada yaala waxa yaala kuwii maaragtay suugaanta waxa yaala kuwii beeraha waxa yaala yani buugtii hore qaranka ayaa library-ha yaala buugtaasaan akhristaa waqtiga kalena waxaan akhristaa quraanka ayaan akhristaa in lagu yiraahdo General Yuusuf Maxamed Siyaad Indhacadde in lagu yiraahdo Sheekh Yuusuf Siyaad Indhacadde kee ku ran waxaan jeclahay in la yiraahdo Sheekh Yuusuf Maxamed Siyaad aan jeclahay taladaada ugu dambaysa mid ciidan mid xilka aad hayso mid shacabka baraha meelaha xoogag ciidanka ay lahaayeen degan dhulka ciidanka taladaada u jeedan leeyahay maxay runtii waxaan u jeedinayaa dadka waxa la soo kulmaamada soo sheegay ka daran dadku ay andhood waa buuqeen weli qaar baa buuqsan oo nala soo hadlaya oo jidadka lagu qabsanaya oo maaragtay teleefanada naga soo wacaya odayaal baa noo yimaada qabiil waxaan dhammaantood dadka u sheegaynaa horta hal ogaada waxa aad haysataan waa hanti aadnaan lahayn waa hanti ummadeed waa hanti dadka ka dhacayda hanti qof idin siin kara ma ahan hanti shakhsi ma ahan hanti shakhsiyaad ma ahan ummadda Soomaalida iskale meel kasta ha joogaan dal iyo dibadda caalamka meel ka joogaanba ogaada marka hantidaasu inay ka qatarsan tahay hantida shakhsiga qofka ay cafiya war kartaa hantida qofka inay ka qatarsan tahay diiniyan ogaadaan leeyahay dadka labo malahidin ogaada saddex dawladdu iyo xoogga dalka Soomaaliyeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaare Khayre Xasan iyo taliyaha xoogga iyo dhammaan madaxda dalku marna in laydinku gudbo ma aqbalayso mana aqbalayno dhulkaas meeshii loo baahdo oo markaas wax laydinku qabanayo ayuunbaa ayaa la taarget garay doonaa asagana dadka degan waa la hadli doonaa dad la daadina ma jiro ama waa deganaanaysaan ama waa laydinku shaqaynaa aakhirana haddii adinkaa qofkii xaraan haystaa isaga ilaahay ay ka dhaxaysaa maalinta aakhiro iyo dadka xuquuqdaas lahaa iyo xisaabtaasu ayay ka dhacaysaa dhulka hantida lagu dhisay canshuur waay hantida gashay canshuur waay dadka dhulkaas yani hagaajiyey oo cabiray oo toosiyey waxay wax ku barteen canshuurtii qaranka ummadda Soomaaliyeed waay ogaada hanti ummad Soomaaliyeed oo aan idin banaanayn ayaad haysataan aan leeyahay maalinta munaasabka tahay keena maalinta munaasabka tahay qofka idin keena oo idinku wareejiyo oo isagu aan idinkoon u doonan yiraahdo waa iga tanaa maxaad ku abaalmarinaysaan insha Allah taala horta anigu gudiyaan madax u ahay abaalmarinta anigu ma bixinayo laakiin waxaan rajaynayaa dawladdu inaanay dayici doonin waa tahay aad u mahadsan tahay gabagabadii su-aasha ugu dambaysa rabo Generaal Sheekh Yuusuf Siyaad Indhacadde inaan ku weydiiyo inta aad nooleed maxaa kugu yaabadnaa wax ka
yaabiyey ama mucjiso ama aad adigu wax badan baad soo joogtay inta aan noolaa wixii ugu mucjiso badnay ugu yaabka badnaa laba shay bay ahayd mid waxay ahayd markii dowladaha caalamka ka mid a inta ii timid ugu tiri dad islaama noo dhiib oo aanu markaas anu gacantaba kuma hayn dhaqaalana qaado oo nala raadiyo dadka islaamka ah soo dil ama noo soo qabo runtii waxyaabaha adduunka igu mucjisada badneed ay ahaayeen ilaa iyo haddana aan xusuusna wixii labaadoo igu mucjisada badnaa wuxuu ahaa nimankii inta shirka jaraa'id qabtay yiri waxaan la dagaalamaynaa diinta oo hogaamiye kooxadeed ahaa runtii ani labadaa shay oon hadda xusuusto isbahaysiga argixisa la dirarka oo igu mucjisada badnaa oo aan ilaa hadda aad u xusuusto labadaas waa ta aad waa kaaga mahad celinayna waqtigaaga iyo fursadda aadna siisay guud ahaan daawadayaal waraysiga koobnaa ee barnaamijka la hadal home cable tv oo marti noogu ahaa sheekh yuusuf maxamed siyaad indhacadde oo ah jenaraal ka tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed islamarkaana ah gudoomiyaha guddiga hanti soo celinta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed intaa ayaan kusoo gaabinaynaa janaalka uga mahad celinaynaa gurigiisa sida quruxda badan noogu soo dhaweeyey fursadda uu noo siiyey waqtigiisa iyo nagala qayb qaadashada barnaamijka la hadal home cable tv cabdiqaadir gacale ayaa kaamarooyinka noo haya dib intaan u kulmi doono waa anigu cabdiqaadir dul yar wadi leh nabaadiino